شرعي وشرعي واحتروا ضلكا مركا صدح دينع بلغا فيريو مركا لغا فيريو دينع دغاله دينع امنيغا iyo dhinaca bulshadaba waxaan isleeyahay media caalamka ee hadda jira waxa weeye anigu waxaan qabaa jahawareer fara badan oo baalkan yare aynu wadana ee teknolojiyadu sameysay telefoonka waxaan qabaa adduunkan ma horumar buu u sameeyay mise dib u dhac buu u keenay marka dhinac walba laga fiiriyo anigu waxaan qabaa dib u dhaciisu inay aad waxyeeladiisu ay aad iyo aad u badan tahay waxa weeye ereyga aan leeyahay waa erey soo adduunka hadda ku dhacay weey wax qarsooni ma jiro sir qarsooni ma jirto caalamkani waa ka isu wada furan innaga Soomaali haddaynu nahay horta mushkiladeenu waxa weeye qabiil ayaynu rabnaa in dawlad ku dhisno ma ku dhismayso qof wal oo Soomaali waa inuu fikiraa waa inuu yiraahdaa qabiilkan aynu daba ordaynaa waa maxay waxtarkiisa binaadmigu taariikhdu wax kala ma aha wixii la soo dhaafay xumaan iyo samaan ayay ku bartaa kolka xumaanta waa in laga leexdaa oo samaha loo leexdaa qarankeeni qabiil baynu ku duminay aan ku duminay waxa la yiraahdaa siyaasad qof khalday ma saxo wax lagu khaldayna lagu ma sii karo qabiil baynu ku duminay qarankeeni waxaynu rabnaa inaan ku dhisno qabiil dawlad ma ku dhismayno ficil ahaana waynu aragnaa arta ka soo bilow ilaa maanta waa ku taaganahay ma ku soconayso nin ismaan aadan la oran jiray Allah u naxariisto ayaa wuxuu yiri qofkii ildeer baa dadka ugu anyaad daran waxaan lala arkayn baa isagu uu muuqda maskaxda laga abaarooy waxaan isleeyahay maskaxdan ka abaarooy wiil yar oo jooga dhalinyaro oo jooga baydhabo ayaa waxa jirta heesu sameeyay oo marmar anigu wasiirkiina u fadhiyahay waxaan rabaa in loo badiyo idaacadaha heesaha dhalinyarada Soomaaliyeed sameysay ee waxay noo sheegaya waxtarka wuxuu leeyahay in dalkeenu hodan yahay waliba dihi yahay dabayl uduku soo diiran leeyahay talxiiskana ku wacan yahay dunidu way ogsoonta heestu way soconaysaa wax kastay sheegaysaa maxaase lagu soo gabagabaynayaa ereyga aan meesha rabaa waa laba arrimood oo midna waxa weeye waxa inaynu leenahay adduunku waa ogsoon yahay ta kale wuxuu leeyahay waxa deegaankeena dabka waxa looga shidayaa faragelinta dibadda aan laynooga daynayn inay tahay taraadood miyaydaan dareemay waxa weeye waa wiil dhalinyaro oo baydhabo jooga ayaa heestaa sameeyay waxaan isleeyahay waxay ina baraysaa cilmi buuxa hal baan idinka soo qaatay 5-6 qof baa ku luuqeynaya oo qofba qayb u sheegaya wallahi haddaynu taasoo kaliya dareeno oo aynu garanno waxaan ka baxaynaa dhibaato waxaan isleeyahay anigu Cabdiweli halkan wuxuu yiri dalka waynu wada leenahay waa runtii cid wax gaar ah lima jirto laakiin waxaad moodaa hadda inagu inaynu kala sheeganayno dawlado badan baynu sameynay anigu ma aan garan qabiil dawlada ku dhismay waxay keenayaan ma garanayaan anigu erey aanan marna la gabanaynin waxa weeye inaynaan qabiil dawlad ku noqonayn dad ku noqonayn qofkii jecel iyo qofkii kalaba
inaynu intaa horta garanno weeye waxaan isleeyahay aqalka sare innagu 60kii baynu xorriyad qaadanay laga bilaabo waqtigaas ilaa hadda waxaynu ku soconay yani hal baarlamaan baynu lahayn soo maaha kan hadda anigu ma garanayo dadku waa iga aqoon badan yahay waa la garan karaa laakiin aqalka sare hawlaha uu qabanaya waa kuwa aynu u baahannahay inaynu ka baranno dalalka adduunka jira ee lahaa aan ka baranno inaga waa inagu cusub yahay waxa weeye jahwareer fara badanna waa ku gelaynaa inaynu baranno oo mayna anfacaa federaalna waan qaadanay haddaan federaal qaadanay waxaa imanaya labada aqal baa imanaya ku danayso igama aha uma joogo ku danayso wax ku noqo ma aha laakiin waxaan isleeyahay dalkeennu waxaynu u baahannahay urursanaan firid uma baahnin firid waxa weeye dhibaato badan buu inoo leeyahay waynu arkaynaa way inoo wada muuqataa kolka walaalayaal waxaan idin leeyahay qabiil aan ka baxno aynu u fikirno qaran dhismihii iyo qaran helistiis halkaas Somaliland waan goostay bay leedahay goosashada shakhsiyaad baa raba dadweynahana ka dhaadhicinaya ku danaysanaya waa siyaasiyiinta anigu midnimaan rabaa waxaan dalbayaa in la ii ogolaado oo ka goosashada raba dalkii waa wada leenahay sidii uu cabdiweli sheegaye inuu ii ogolaado inaan dadweyne la hadlo oon fikirkayga dhiibto isna kiisa uu dhiibto oon wada hadallo oo aan doodno waxaan ku tala jiraa waxa haddaan rabaa reer waqooyiga ma aanu qabiil malihi qabiil waxaan leeyahay reer waqooyi oo isku duuban kana inay midnimo u joogaan oo midnimadii caddaatay inay u joogaan oo loo arko inayna ahayn dad u jooga waxoogaa dhaqaalaha u jooga inaan loo arag kuwaasna ay noqoto inaanu intaanu hor fadhiisanno aan idhaahno haddii dalka waynu wada leenahay haddaad goosasho rabtiin iqanciya anigana iga dhagaysta midnimaan rabaahay waxaan rabno aanu idiin sheegno waan rabaa ragga reer waqooyiga ee jooga halka ayaan u soo jeedinayaa inaan isku duubanno dawladdana waxaan ka dalbanaynaa inay nagu taageeraan oo gacan nagu siiyaan arrintaa in la dhaqaajiyo oo ay socoto waxaan filayaa meelo aynaan hadda halka u fadhiyin ayaan taabanayaa aan taabtay laakiin waa dareenkayga shakhsiga ah oo aan aaminsanahay oo aan rabo dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba inaan ereyada kula hadlo mudana madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsantihiin